بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين كلمتين سدح إلى لبعتناد maanta waxaan u gaar yeelnay fadlu lqur'aan alkariim qur-aanka kariimka ah fadligiisa wax la koobi kara male si looga hadlaaba adagba ilaahay wuxuu nagu manaystay jala jalaaluhu umamtii hore wax ka duwan oo ah kalaamku asiga noo soo dejiyey iyo sunnada nebiga ah ilaahay inuu noo xifdiyo ilaa qiyaami saaca isbedelaysan ku imaanin umamtii hore kutubtii loo soo dejiyey taxriif bay geli jireen qaarkood baa aayaadku wax ku bedeli jireen qaar bay aayad goyn jireen laakiin kalaamka ilaahay inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun dadka bani aadamka looma dhaafin xifdintiisa inay ay xil ka qaataan ilaahay baa xifdiyey bal huwa aayaat bayinaat fi suduuri aladiina uutuu lcilm qur-aankii waxa weyaan quluubtii dadka muminiinta o dhan uu ku wada jiraa masaaxiftii wuu ku qoran yahay bikuli alsina nin kasto luqa kasta u dhashay sidiisa carabiga lagu akhriyaa diinta kale fiir haddi waa la tarjuma fiqhigii waxaasoo dhan luqadii kale lagu akhrina laakiin qur-aanka kamaa huwa yaa lagu akhrinaya marka qur-aanka fadligiisa wax la koobi kara male walaa yutaqarabu bishayin ila allahi afdalu min kalaamih ilaahay wax loogu dhowaado waxaa ugu weyn kalaamkiisa jala jalaaluhu walidaalika miisada uu leeyahay qur-aanka waxa kale cibaado wuxuu ka duwan yahay man qara'a xarfan min kitaab illahi falahu bihi xasana adkaarta kale jumlaha ajir lagugu siinaya qur-aankana xaraf ninkii xarafkii akhriyo xarafkaas ajir buu ku leeyahay xasanadina cashru amhaaliha tobana lagugu dhufanaya nabigu wuxuu uri laa aqulu alif laam miim xarfun walaakin alifun xarfun walaamun xarfun wa miimun xarf ayada keligeed baad soddon ku qaadanay markii uu yar tahay weeyaan midda kale qur-aanka qiyaamo markii la taga waa lagu kala baxaa darajaadka dhaadheer waxaa lagu gaara qur-aanka weeyaan nin kasta waxaa la leeyahay iqra' wartaqi waratil qur'aan kamaa kunta turatilu fi dunya fa ina manzilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uhaa qur-aanka qofkii waxaa lagu leeyahay akhri korna u soco qur-aanka tartiil u akhri si tartiib ah oo axkaamtiisu u dhammaystiran tahay sideed adduunyada u tartiili jirtoo kale aayadda ugu dambayso markay kaa dhammaato yaa darajadaasayd ku eg tahay marka sidii hadba loo kala qur-aanka qaadasha badan yahay yaa loo kala darajo sareeya hadduusan qofka kale acmaal kale uu asna ku saramara uusan helin ahlulqur'aan hum ahlullaahi wa khaasatuh ilaahay dad gaar mudnaan gaar ka lahaa jira waa dadka ahlu qur-aanka ah kalaamka ilaahay jala jalaaluhu iyo kalaamka basharka waxaa u dhaxeeyo sidii basharka ilaahay waxaa u dhexeeya ayaga khaaliq iyo makhluuq darajadooda isku dhow miya kalaamkoodana sidaasaa u dhexayso marka waxaa weeyaan qur-aankii waxaa haboon qof kastaba inuu qeyb ka qaato fii sunani tirmidi nabigu wuxuu iri aladii laysa fii jawfi shayu min alqur'aan kalbeyt alkharb guri laga guuray oo isku dumay buu la mid yahay ninka qur-aanka qalbigiisa wax qur-aan ku jirin laakiin walilaahi alxamdu nin kastoo muslim ah oo ilaahay rumaysan qur-aanka wax waa ka yaqaana hadda bal fiiri faatixada ugu sahlan faatixada ninkii xifdisan ilaahay kalaamkiisa baa qalbigiisa wax weynaa ku jira liannaha acdamu suurati fi lqur'aan qur-aanka suurada ugu fadli badan oo ugu sareysa waay ninkii xifdisan lama dhahay qalbigiisa waa ka maran yahay qur-aan lama dhahay qur-aan waa haystaa marka ha siyaasadaa loo jeeda marka kalimaad yaryar inuu kusoo kooban doonaya qur-aanka marka hore wuxuu naga rabaa inaan baranno qur-aanka barashuu rabaa barashadana keligaa isma bari kartid nin baa waxaa layidhi luqadayuu mutamakin ku ahay markaasuu iri qur-aanka uma baahna buuri anigaa akhrinayo weligeyna qur-aan ma akhrinin markaasaa layidhi waxaa loo soo bixiyay aliflaam miim iyo alam nashraxa loo soo bixiyay akhriyaa layidhi shaqal male wax male labadooda isku si uu akhri marna aliflaam miim nashrax buu akhri waa layidhi waad khaldatay markaasuu alam nashrax intuu akhriyo tii kana alam u akhri tii kalani haddaadan talaqi haysanin ma keeni karis
walidaalika ilahi wuxuu ku yiri wa inaka latulaqa alqur'aana min ladun xakiimin caliim. nabi maxamed ali qur-aanka wax ma aha oo aad cid kale ka keentay ma talaqi wa talaqi ilaahi buu kala kulmay biwaasitati jibriil xarfan bixarfina loo baray asoo nebiga oo quraysh ah oo afsaxul umam ay ahaayeen lama dhihin qur-aankii waa kaas carabiga adiga afkaada ku akhri lama dhihin laakiin waxa weeye talaqi qofka yaqaano oo ku sugo laba shay isku mid oo si laba loo kala akhrina baa jirto horta taasaa loo baahan yahay. dadka qur-aanka laba ay u kala baxeen markay bartaan nin maahir qur-aanka ku ah intuu bilaabay oo bartay oo xifdiyey oo mutamakin ku yahay maahir baa la yiraahdaa. haaulaa'i maca safarati alkiraam min almalaa'ika darajadooda aad bay u sareysaa. dadna ilaahay mawhiba ma siinin qur-aanka uu ku adag yahay alladii yaqra'u alqur'aana wayatatactacu fiih wahuwa calayhi shaaqun lahu ajraan buu nabiga calayhi salaatu wasalaam yiri. waxaa weeyaan fahmadii ninkaas oo kale male laakiin jidkiisu soo haaya qur-aankii wuu akhrinayaa waa isku dhibayaa inuu sidii saxda u akhriyo. sidaas haddii ay malagii ugu yimaado ajirkiisa waa leeyahay. hadduu ku guulaysto ou markaa qur-aankii saxo ou meeshii laga raba gaadina maahiriintuu ku darsoomaya. intuu jidka soo haayane waxa weeyaan ajirkaa labadaas ajir buu leeyahay. marka ma jirto wax la yiraahdo aniga qur-aankii markii horaan xoogaa ka barbartay maalin kasta safka horaan galaya musxafka iska soo qaadanaya sida ila noqotaan u akhrinaya. taas ma ah. dadka hadda saasay u badan yihiin. dadka haddaad aragtay carabta nooga badan wuxuu akhrinaya hal kelimo oo sax e ma leh oo wuxuu leeyahy waan ku cibaadaysana asoo kari karo qof macalima intuu doorto ama u tago u yirahdo carabka ii sax. say u dhici karta qur-aanka inaan ka akhriyo musxafka si sax uga akhriyo. aqala shay waxa weeyaan musxafka inaad ka akhri kartid wax toosan. yani markaan leenahay waxa weeyaan shaqalkii qur-aanka axkaamtii ugu yareed xusari oo kale noqo laguma dhahay laakiin wax sax ah oo sidii qur-aanka ilaahay u soo dejiye u saxsan oon shaqalkii gabsanayn inaad akhrisid waa. laakiin iyaaka nacbudu haddaad iyaakii nacbudu leedahay yani kayf ma dhixi karaysa. marka ma aha ninka meeshaada iska joog sidaadaad ajir ku leedahay ma aha. qofka waa inuu saciyaa inuu carabkiisa ku saxo qur-aanka wuxuu akhrinaya. wixii kaloodba aada akhri karin iska dhaaf wixii kuu saxan ku celceli sidaasaa la doonaya. qur-aanka in la saxa daraaddeed cibaado la ogolyahay in la isugu yimaado waa inta la xalaqa loo fariisto oo markaa qur-aanka la iska dhageysto. lianna waxaa ka laazimayo cid kasta meeshay ku khaldan tahay inay iska toosiso. majtamaca qowmun fii beytin min buyuut illaahi waatuu nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii aada u qiimaha badnaay ou nabiga calayhi salaatu wasalaam noo sheegay. marka maxay qabanayaan yatluuna kitaab allahi wayatadaarasuunahu baynahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قرآنك بي إيمانيان أخرنتيس بي إسكا دقيسانيان مركي كقدبان معانيس بي إسو شيغيان مركي كقدبان هنونكيس بي كهضليان دادكاس درجة إليهن ملائكة إلهي أكتيسة وكو أمان تميا وذكرهم الله في من عنده دومان كاسان لا يهيبو ليه قرآن كاد درجة داس لغو قارا. marka kale waxaa ku xigta qur-aankii waabad baratayba almuraajaca watacahud. waxaad ogaataa dad kasta oo muslim ah inuu qur-aanka xifdiyo waa doonaya laakiin limaada fulaan min annaasi yaxfad alqur'aan walaakhar laa yaxfad leesh isweydiya. waxay isku dhaafeen casiimada waa ninkaana uu isdhibay niyadiisana maxaan ku yiraha waa soo xaadiriyey kaasna khayrkii waa jecel yahay laakiin casiimo ma leh. hadda u fiirso muslim kasta dumar iyo rag nin weyn nin yar inuu qur-aanka xifdisanaan lahay waa jeclaan lahay laakiin waxaa lagu kala tegay go-aanka qofka uu qaadanayo. ninna waxa weeye waqti buu u khasisay habeen iyo maalin buu u soo jeeday waana ku guulaystay. ninna waxa weeye niyaduu ka jecel yahay laakiin markuu hal aayad xifdiyo waqtigu ku dheeraada buu iska dhaafaya. waxaa kasii khasaaro badan ninkii ilaahay qur-aanka u sahloo xifdiyey ee haddana iska dhaafay muraajacadii laga waayo. qur-aanka tacahud buu u baahan yahay. nabigu wuxuu yiri wahuwa aladii nafsii biyadihi lahuwa ashaddu tafallutan min alibili fii cuquliha. geelo oo xeraga laga sii daayay yani meel aad ku arkaysid ma jirto waa kaa dhumaya. sidaas oo kale qur-aanka haddiidan muraajacaynin soomaalida waxay tiraan qur-aanka 4 maalmood haddaad moogtahay 40 uu ku moog yahay wax saxa waay.
qur-aanka muraajaca joogta ah inuu leeyahay 3 juz ugu yaraan 2 juz ugu yaraan inaad maalin kasta akhrinaysa xataa juz ninka xaafidka ama ku filan waa wax la wada og tajriba lagu ogyahay marka waa inaad juz leedahay qur-aankii maalinta kastaba oo ilaahay hadduu ku xifdiyey aad dadaasha badanaa waxay u badan tahay dadka dhalinyarta qur-aankay soo baranayaan markii ay dugsiga ka baxaan xuriyadii iyo maxaan ku iraahdaa sheekadii iyo dadkii qur-aankii xabisay oo dhan waxaa laga yaabaa inaysan gadaal u milacsanin bacda 20 caaman yacuduuna asaabica nadam markaasaa way shalaynayaan qur-aanka maruu isoo gacan galay laakiin dhalinyarnima iga dhumisay meelo kaleu la aaday marka taasayna kugu dhicin min alaan qur-aanka waqti u qabso muraajacada marka 2 juz 3 juz 4 juz adiga waxa weeyaan ilaa qofkii 7 juz ugu badnaan 3 marka loo dhigo hal qeyb maalintii ugu badnaan nabiga calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi ibn camr ibn caas markuu la kulmay qur-aankii waan akhri karaa buu yiri maalinta dhanaan dhammayn karaa waa laga diiday wuxuu qabsaday 2 maalin ku dhammeey waa laga diiday wuxuu qabsaday 3 waa laga diiday 4 waa laga diiday 6 waa laga diiday 7 loo ogolaaday qaal wuxuu yiri fashaddadtu fashuddida calaya todobadaas ma dhaafi kartid soomaalida aad bay u fiican yihiin oo xadiidkaas ay baqaateen waxaan u ognahay macallimiinteennii raggii xufaadka ah qur-aanka waxay dhihi jireen maalinkii jallaada la akhrina jallaad jumcaad jallaad sabtiyaad qur-aanka 7 maalmood jumcadu laga soo bilaabo khamiistana waa la dhammaynaa waa xadiidkii oo waxay ku salaysan tahay xadiidkii cabdullaahi ibn camr ibn caas jallaad in la akhriyo suuratul faatixa ka soo bilow fakayfa idaa أصابته مصيبة حدنا فكيف كبلاو إذ نطقنا الجبل كبلاو مثل كلمة خبيثة كبلاو هدنا واقع إلى أتكجرتد قرآن كآخر كيس وحلو ذي قان علامات لا يقان نوع مركا النبي وحور لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3 حديث أبو داود الترمذي أي ورياني صحيح يا لنوه قرآن نكي 3 مالمود كير كل ما فهمين qur-aanka akhrintiisana waxaa loola jeedaa in lagu fahmo akhrintiisa ayaa loo jeeda walidaalika nebiga hadigiisa waa kaa 3 maalmoodaa looga qabtay ugu yaraan haddii aan aragna fulaana qur-aanka maalin dhameey ama 2 khatmo maalin akhriyey allahu aclam bixaali hadaka arajul laakiin annaga dadka waxaan leenahay 3 maalmood ugu yaraan ka yar ha ku khatiminaan leenahay liannahu nebiga dadka noola mid ma aha markaan fiiriye aniga siirada salaf fulana quraanka dhamay fi rakca fulana dhamay waxay u dhowdahay qiraa'o binadar wax la yiraahdo aniga waan sameyn jiray qofka مثلا maanta dad baad ku ballantansatiin inaad quraanka مثلا 5 juz oo kale aad akhrisan subax isku dhageysataan ninkan aayad akhri ninkan ama maqra la akhriyo sida anaga aan markii hore sameyn jirno oo quraanka awalka inta la akhriyo aayada aakhirkeeda la isla qabto sax ma ah لأنه إلهي وحوره إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إن سود جيسنا الربا ما مرت لو قايلنا لا دوني ما صح ما وميل وكو خدمي كرنا بشر بانا أنا مركا قرآنكي waxaan sameyn jirnay marka maanta juska loo socdo مثلا akhrintii loo socdo xalaqadii lagu akhri la doonay meeshii la rabay in la akhri waad fiirinaysaa saasaad isha ula raacay akhrinka ma aha laakiin aayaadka iyo safaxaadka iyo meesha ay ka bilowdaan yaad fiirinaysaa saysan iska ka dhaxyaacin hadhow markii dadka aad la akhrinaysa taas markii la yiraahdo quraanka dhan waxaad ku akhri kartaa yaad ku fiirin kartaa 2 saac 3 saac ku fiirin kartaa marka Allahu a'lam dadka qaarkeed oo laga wariyay inay ay quraanka ay akhrin jireen maxaan ku iraahdaa fi rakca ama ay ku akhrin jireen inay nadar tahay inay dhici karto ya suuragal wallahu a'lam طيب quraanka waxaa la rabaa markii anaga aan baranno oon muraajacada ku celino haddana tadabbur anaga la rabaa quraanka macnihiisa quraanka kaligiis iska akhri lafdigiisa ma ah waa inaad quraanka ku tadabburtaa macnaha aayada ay leedahay waa inaad fiirisaa لأنه إلهي هدفك قرآنك لو سود جيباب سداسة كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب إلهي وحور كتابك وأن سود جن إليك كتابك سود جوح مبارك كتاب مبارك معناه مبارك خير كيسا بدن أجرك لقى هلي حنونك لقى هلي وحلا كوبي كرماه محلو دجي ليتدبروا آياته آيات كيسا إني فيريان معناه أيضا دنسدان
oo markaa caqli celin uu kuu faa'iideeyo xumaantana uu kaa saxa wanaagina uu kugu buuriyo tadakurka saas waa. walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam sida xudayfa cinda albukhaari xadiid oo saxiix ah, nabiga waxaa uu caado u lahay hadduu aayad maro oo tasbiix ka hadlayso waa sabixsan jiray, hadduu aayad maro oo su-aal ay ku jirtona ilaahay buu weydiisan jiray, hadduu aayad uu maro oo ay tacawud ilaahay wax laga magangal ay ku jirto waa ka magangeli jiray. ma aha masalada 4 jusciyon iga dhamay 5 iga dhamay ma aha. nabiga fiir meeshuu maraba hor tatbiiq uu sameynay markii uu arka fasabbix bixamdi rabbika subxaana allahi wa bixamdihi saasuu leeyahay. marka fastacid billahi min ashaytaan rajiim acuudu billahi min ashaytaan arajiim. markuu arkay is'aluu markuu allahuma inii as'aluka an takfira lii, marka maba aha aayadda hore ka gaarsii ma ah. qur-aanka la noolow baa lagu leeyahay, qalbigaada kala soco. marka nin sidaa qur-aanku akhrinayo ma sahlana inuu ciyuun ku dhameeyo, ma dhici karayso. marka qur-aankii waxaa weeyaan inaan sidaas aan u akhrino. waxaa khalad ah inaad maalin kasta jalaad akhrinaysa ama 5 juz aad akhrinaysa maalin kasta 10 sano 20 sano 30 sano aayad macnaheed haddii lagu weydiina aadan aqoonin, taas waxaa weeye macduur ma ah, qofka cudurku heli maayo. waa inuu kaca u qastaa qur-aankan uu ilaahay kula hadlayo macnihiisa maxay tahay inaad weydiisid waa saad u garatid aayadda akhrini macnaheed. hadafka laga leeyahy saas waa. qur-aanka lafdigiisa ajir waa laga helayaa, laakiin macnihiisa laga maarmaan ma ah. walidaalika waxa weeyaan maanta cilmigii guriguuba kugu yimidba, tafsiirkii oo musajal ah oo cajal ku duuban oo luqadii aad garanaysa lagugu laqbay baa yaallo. soo qaado qur-aankaad xifdisan tahay amaad maalin kasta akhrisid, isweydii darsi u dhageyso ilaa suurati naas aad ka gaartid, waxaa kuu baxaya iftiin. waxaad akhrinay macnaheedaad garanaysaa, taasaa hadafka weynu ku jira meesha in la ilooba ma ah. ayib qur-aankii waxaa ku xiga markii adiga aad dhamaysid dadkii haddana in la baro. khayrukum man tacalama alqur'aana wacallamah. markaad baratid raaxa ma jirto, waxaa lagu leeya waxaad baratid dadki gaarsii ku qaado, haddaad rabtid ajir ku qaado oo lacag ku qaado ama lacag la-aan ku bar waa sida fiican. lianna qur-aankiina in ajir lagu qaato waa banaantay. macalimiinta dugsi in ay abuurtaan oo ay lacag ku qaataan. nabigu wuxuu uri khayru maa akhadtum calayhi ajran kitaabullah. marka ajir waa lagu qaadan karaa, liannahu haddii aanan saas la yeelin waxay noqon lahayd qur-aankii o dhan in la ihmaaliyo. laakiin macalinka hadduu nololka helayo qur-aankiina dadkii uu kugu tabarucay inuu baro waa wax fiican weya, dhib ma laha. laakiin waxaa khalad ah in dadkii caruurtii yareyd kugu aamineen oo aadan adiga bari kartid oo qur-aanka aad xifdi kartid inaad qasadkaada u ahaado inuu lacag ku qaadatid keli ah. ninkii wax bartay ninkaana wax baran 100 caruur ah nina wuxuu leeyahay anaa keligay wax baray 100 qof weligiis wax bari karaa. dadkii caamada ah jahligoodu ka faa'iideysanaya qur-aan uusan wax baraynin, dugsiga laga qaylay un baa muhiim ah bishiisana uu ka qaato. haddii ay khalad tahay qofkii in beeci iyo shirihi lagu khiyaano, waxaa kasii qaab daran in qur-aankii barashadiisii oo lagu xil saaray inaad dadka ku khiyaantid. ninkii wax baranayana inaad waajib kugu tahay aad u bartid, kii wax bara waayna waalidkiis u yeerto tiraahdo caruurtaada dhibkaasa haysato, intaas buu dhaafi layahay, xaaladiisa la soco, sidaas muu kugu joogayaa mase waa la bixaysaa inaad tiraahdo. ammaanada saasay ku jirtaa. laakiin inaad tiraahdo maasha allah wiilkaada wuu fiican yahay waxna aadan baraynin 10 sano min cumri saas ugu tagto amaam allahi waa lagu weydiinaya. qur-aankii markaan baranno dadkii aan barno haddana waxaa noogu xiga inaan ku camal falno. waxba tari maayo qur-aanka lafdigiisii macnihiisii ood garat haddaadan ku camal falayn. qur-aanka wuxuu ku leeyahay dadka ha dhibin, dadka ha xamanin, salaadi duko, zakada iska bixi. awaamirtuu ku siinay haddaadan fulinaynin in lafdigiisa xifdisan tahay ood macnihiisa taqaan maxay soo kordhisay. wa aqiimu salaata waatu zakaata buu qur-aanku yiri, macnihii waa taqaanaa mana dukanaysa laakiin ma bixinayso. qur-aanka waa xifdisan tahay. laa tasdaadu min allahi ilaa bucdan. aad baad ugu fogaanaysa, ciqaab bay kugu noqonaysaa. liannahu ninkii wax yaqiinay oona ku camalfalaynin waa aad buu u qaabdaran yahay. qur-aankii marka in lagu camalfalo, camalfalidaas labay ay kal tahay. camalfalid calaa mustawa alafraad ah waxaa weeyaan shariicada in isku dabaqda adiga wax gaar kuu qosaya jiro.
hadda ilaahay markuu la salaadi duko dad ha xamanin zakada iska bixi been ha sheegin ilmahaada tarbiyayso waa adiga shareeca gooni ku khusaysa waa cid kaalama dhexayso marka horta adiga wixii gooni low nin kasta oo muslimiinta kamid ah shareecada naftiisa horta ku dabaqi lahay midda guudna way imaan lahayd annaga mushkilad waxayna haysataa shareecadii guud intaan ka aanba la gaarin tii daakhilka annaga oo na khusaysaanba isku dabaqaynin nin kasta gurigiisa hadduu shareecada isku dabaqi lahaa midda kalena way imaan lahayd taa waa mid weeyaan midda kale waa mid ummadii laga rabo ka mustawaa dowla dastuur waa qur-aanka kariimka iyo sunnada nebiga inaan ku camal falnoon isku xukunno intuusan gumayskii noo imaanin ka hor dadka muslimiinta waxaan shareecada ahayn maxkamad ma ooli jirin ayadaa lagu xukumin jiri cadowgii wuxuu ogaaday ummadda qawideeda iyo xurnimadeeda iyo istiqlaaliyadeeda inay ka helaysa in ilaahay kitaabkiisa ku dhaqmayso tii baa laga fogay kitaabkii halkan iska dhagaalyiri qaanuunkeenaan annaga qaata dowlad kasta oo ummad muslima gumaysatay qaanuunkeeda usoo qaatay talyaani ninkuu gumaystay qaanuunkii talyaaniga loo keenay faransa ninkuu gumaystay faransa talyaani qaanuunkiisa loo keenay ingiriis qoladuu gumaystay ingiriista ayaa loo keenay waxaa la yidhi kitaabkii dhinac iska dhiga caqligeenna waxaan ku dhiganaa idinkaga fiican lianna ummadda in la gumaystaa la doonayaa oo khayraadkooda iyo caqligooda la qaato waxayna ku suuri kartaa ilaahay in laga soo gooyo oo liraa aniga iyo soo xuguntan hadhow markaa waxaa weyaan wixii aniga aan ku xukumaad qaadanaysaa waxwa aada u qaab daran waay in kitaabkii ilaahay aan cala jambin iraado oo bani aadam caqligooda waxay ku sameeyeen aan iraado shareeca bay noo tahay wax la aqbali kara maaha alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriiduuna an yataxaakamuu ila taaguut falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum iimaanka waxay ku xiran tahay sharciga ilaahay inaad ku xukuntid mas'alo oo gorgortan u baahan ma ah alaysa min alcayb ummadii waxaabayaan umamtii horaa noogula talagalay inaan annaga diinteenna gaarsiino oo dhibka haysta aan ka furanno marka inaan annagii aan noqono inaan baadilkeeda soo qaadano soo ceeb ma aha kitaabkan mahaamta loo soo dejiye waxaa ka mid eh ina hada alqur'aana yaqusu calaa bani israa'iila akthar aladii hum fiihi yakhtalifuun waxyaalaha loo soo dejiye waxaa ka mid reer bani israa'iil waxay madaxa iskula jireen in lagu kala bixiyo annagaa noogula talagalay ummadda inaan xal u raadino ee anaga inay xal naga raadiyaan ma ahayn almuhim markii aan kitaabkii aan baranno aan muraajicayno dadkii aan sii barno aan ku camal falno oo aan haddana maxkamad aan ka dhigano waxaa noo sii dhiman atabliiqu bihi qur-aankii dad kale in lasii gaarsiiyo waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri wayamuruuna bilmacruufi yanhawna can ilmunkar khaasiyada ummadeenna ay gaar u leedahay waxaa weeyaan umamta kale ayaan khayrka ugu yeernaa liannahu rasuul kaloo la sugaaya ma jirto waxyigan ilaahay oo kaamilka meelu ka jiroo kalena male annaga unbaa ilaahay nagu manaystay waxyigan in annaga isku ekayno umamtii kale aan ugu yeerno oo ay diinta sabab ay ugu noqotay waajib cayni nagu tahay wallahu aclam